maxkamad military oo Soomaaliya ku taala ayaa dil toogasho ku xukuntay nin doorkii uu ku lahaa qaraxii bam ee ka dhacay magaalada kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof bishii Oktoobar. qaraxaasi oo dhacay sanadkeenu ka soo gudubnay waxa uu ahaa kii ugu xumaa ee soo mara taariikhda Soomaaliya, waxaana ku dhaawacmay boqolaal qof oo kale. Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya ma aanay sheegan weerarkaasi. maxkamaddu sidoo kale waxa maanta xabsi daa'in ay ku xukuntay hal nin mid kalena 3 sano oo xariga. sidan ayaana go'aanku ugu dhawaaqay gudoomiyaha. xasan aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. 2 cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. haddaba wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad ayaa la socday kiiska maxkamadaasi la xiriirta weerarkii Zobe, waxaana goor dhaweed uu iga warramay qaabka ay wax u dhaceen. farxan maxkamadaynta dadka maanta la xukumay waxa ay soo socotay muddadii 4 bilood ahayd ee la soo dhaafay, iyada oo ciidamadu inta ay wadeen baaris iyo sidii ay ku ogaan lahaayeen sidii ay wax u dhaceen, balse waxa warbaahinta markii ugu horeysay loo ogolaaday maxkamadda muddo bil uun ka soo wareegatay oo dadkii la doonayay in maxkamadda la saaro la soo bandhigay, isla markaana maxkamaddu ay u bilaabatay si rasmi ah. marka laga reebo qofka maqan, dadkan la xukumay dhammaantood ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay iyaga oo xiriiro iyo dabagallo ay sameynayeen ay arrinkaas ku guulaysteen in ay soo qabtaan. waxaa maxkamaddu ay u ogolaatay xukunka kadib in ay raacfaan ka qaadan karaan haddii aysan go'aanka maxkamadda ku qancin, balse xiriiro aan la sameynay qaar ka mid ah qareennada raggan la xukumay waxa inoo sheegeen in aysan qaadan doonin wax raacfaan ah oo dacwadda ay ka gaareen halkii ugu dambeysay, isla markaana ay ku guulaysteen in ay ugu yaraan eedeymaha loo haysto dadkan xukunnadii kaga aadanaa ay hoos u dhigeen. waxaa xusid mudan in xukunka dilka toogashada ah inta aan la fulin uu u baahan yahay ogolaansho iyo saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda, taa oo aynu ka warqabno muddada uu madaxweyne Farmaajo joogay in aysan dhicin wax saxiix ah uu saxiixay oo lagu fuliyey dil toogasho ah.